isu soo baxani oo ay soo abaabuleen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Cayn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Banaanbaxani ayaa lagu diidanaa guddiyo dhawaan la sheegay in laga sameeyay magaalada Buuhoodle kuwaasi oo sheegay inay qabanayaan shir lagaga hadlayo aayaha iyo mustaqbalka deegaanka. dhinaca kale banaanbaxani ayaa si weyn loogu weeraray waxa ay mudaharaadayaashu ugu yeedheen faragelin ay sheegeen in maamulka Somaliland ku hayo deegaanka gobolka. waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qayb galay banaanbaxa oo arrintaasi ka hadla. inaynu nahay oo aynu inagu nahay gobolkan Cayn aynan ka tirsaneen maamulka Somaliland aynan wax wada hadal ah la geli doonin ilaa ay ka baxaan dhulkayna oo ay baneeyaan gobolka Sool haystaan. ragga wax qabanqaadanaya waxay doonayaan iyaga intay fidaan inay Somaliland lagu daraa bilaa shuruud loogu daraa waxba inoo dhacdo waxbay ka xiyeen. waxaan leeyahay cid bilaa mas'uuli ma jirto horta mas'uuliyaddu teeni hore ahaato oo meesha loo lugelinaayo la taaban maayo intay isbedelayaan. isbedelka aynu sugayna ugu weyni waa shirki London ee la oran jiray tawfiiq ee dhufaanta ku heshiiyey haddii cid ka timaado oo la leeyahay dhaqsaan loo imanaya waxay bedeli karaan inta ka horeysay kulligeed waardiyeenu ahaanayna. odayaasha iyo waxgaradka gobolka Cayn oo qayb ka ahaa banaanbaxa maanta ka dhacay magaalada Buuhoodle ayaa qaarkood halkaasi hadal ka soo jeediyeen. waa kan Caaqil Cabdiraxmaan Axmed oo arrintaasi ka hadla. waxaan leenahay marka ugu horeysa walaalayaal waxaynu isku nimid waxaa weeye wixii aynu diidnay oo la doonayo in laynagu qasbo oo gacanta gumaysiga laynoo geliyo oo xabadii lagu bedelo lacag waxaynu diidna caynkaa weeyaan saasoo maaha. maxamuud xaaji cumar camay oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa isna halkaasi hadal kooban ka jeediyey. waad mahadsantiin cid ceebayn mayno waxaan idiin sheegayaa oo keliya walaad hadalkaa dhegaysta marka sida uu Cabdiraxmaan sheegay xabad lagu quustay yaa siyaasaddeena ku dhexgelaya la doonaya in xagalo. dhinaca kale isimada gobolka Cayn oo iyaguna shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay inay taageersan yihiin banaanbaxa maanta dhacay waxayna tilmaameen in uu ka turjubayo aragtida dadka deegaanka. garaad Saleebaan Buraale oo u hadlay isimada ayaa isna sheegay saxaafadda annaga u yeedhnay saaka waxaan ugu yeedhnay waxa weeye mudaaharaad ballaadhan oo si fiican loo soo abaabulay ayaa magaalo madaxda gobolka Cayn ee Buuhoodle saaka ka dhacay. mudaaharaadkaasi wuxuu muujinayaa shucuurtii dadka iyo waxa uu dadku aaminsan yahay. shucuurtii dadku taa muuqatay weeye ee caalamku uu daawan doono cid kastaaba inay sidaa aaminto oo ku dhaqantaa lagama maarmaana. waxaa intaa weeliya haddaan nahay isimada iyo waxgaradka badan ee aan garoonka tegin ama joogin ee aan ka muuqan saxaafadda horteeda saaka waxaanu aaminsannahay waxa uu dadku bandhigay ayaanu ku raacsanno ayidsannahay. maaha markii ugu horeysay oo banaanbax noocanihi uu ka dhaco magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waxaana sanadihii u dambeeyay magaalada Buuhoodle ay noqotay mid ku caanbaxday mudaharaadyo ujeedo badan ah iyadoo mudaharaadka maantana uu ka mid yahay mudaharaadyada aan dabago'a lahayn ee ka dhaca magaalada Buuhoodle. Khadar Cawl Ismaaciil Universal TV Buuhoodle.